السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا غياري ميل كاستو aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha maanta waxaan ku eegi doonaa warka ugu dambeeya sportiga wargeysyada caalamka waxay qoreen oo ku saabsan ciyaaraha the latest transfer news inta badan waxaanu eegi doonaa anta suuqa kaliibsiga ciyaaraha dhowr ciyaaryahan aad moodaa inay doonayaan inay iskaga tagaan kooxaha adigoo doonaya in ay ku biiraan kooxahan cusub iyo waliba waxyaaboon kale oo dheer sportiga oo aad u muhiim ah ayaanu eegi doonaa dabcan waxaan soo kale eegi doonaa waa sidee rajada ciyaaryahan Mane iyo waliba kooxda kubadda cagta Liverpool oo wali ku dhagan hasaate ciyaaryahan Mane oo qaatay go'aan adag go'aankaasi muxuu yahay maxaa sabab u ah in Mane uu ka tago kooxda kubadda cagta Liverpool muddo 60 sano kadib iyo 6 koob wow hadaan ku cusubtahay subscribe noo sar hadaan ay mitana like noo أهلاً وسهلاً أصحابي ميل كاستو joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena faaqilaada ciyaaraha hadiyaan eegno wararka wargeysyada caalamka waxay qoreen siba dhanka canta suuqa kaliibsiga ciyaaraha ciyaaryahan Sadio Mane aad moodaa in wararkiisa ay qabsadeen dhammaan wargeysyada caalamka siba kuwa ka faalooda sportiga Mane ayaa ka go'an inuu iska tago kooxda Reds ee Liverpool ciyaaryahankan ayaa moodaa in toddobaadku ku qaato adduun dhan 100,000 runtii haddii aad eegtid qaab ciyaareedka ciyaaryahan Mane iyo 6 sano uu joogay kooxda uma qalman ciyaaryahanka la siiyo 100,000 dhowr ciyaaryahan ayaa jirta runtii oo qaatay lacag kale oo waaliya toddobaadkii oo ahsan haddii aad eegtid uusan kooxna sida waxba ohayn sida naadiga United ciyaaryahanka Ronaldo kaleetiya Paul Pogba oo kaleetiya dagiya oo kaleeta mishaarka ay qaataan waa kuwa waaliya haddana waxtarkooda ma ahan mid muuqda sida Sadio Mane oo kaleetiya Mane ayaa ka dalay kooxda inay siiyaan mishaarka ay siiyaan ama ay siin doonaan ciyaaryahan Mohamed Salah kaasad moodin qandaraaska cusub ee kooxda ku xiray in toddobaadkii la siiyo adduun dhan 400,000 marba haddii Salah ay siiso kooxda 400,000 toddobaadkii oo soo kaleetiya Mane uu dalbaday isla mishaarku qaato ciyaaryahan Mane aad moodaa in kooxda aysan ka goyn in ay dhibaan mishaarkaasi waalida ah markii kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa moodaa in ay iminka diyaar u tahay inay siiso ciyaaryahan Sadio Mane lacagtaasi ama mishaarkaasi uu dalbanaya oo ay in toddobaadku ka qaadan doono kooxda 400,000 soo kaleetay sanadkii aad moodaa inay sii doonaan lacag kale oo waaliya oo san ka qaadeen kooxda kubadda cagta Liverpool Mane la joogay kooxda Liverpool 6 sano isagoo ugu soo biiray xagga kooxda kubadda cagta Southampton isagoo kula guuleystay 6 koob oo muhiim ah iminka kooxdu waxay doonayeen inay bedel ugu dhigaan ciyaaryahan Mane haduuba ka tagay kooxda kubadda cagta Liverpool ciyaaryahan Pedro laacib ka tirsan kooxda kubadda cagta Watford waana kooxda iminka u dhaadhaxday xagga iyo Serie B-da ama Championship-ka ciyaaryahan Pedro ayaa loo arkaa inuu yahay bedelka muhiimka ama bedelka la dhihi karo uu bedeli kara ciyaaryahan Sadio Mane inkastoo kooxdu horeystaan ciyaaryahan Jota Salah Diaz iyo Firmino haddana soo kale wuxuu baahay inay helaan bedelka ciyaaryahan Sadio Mane Pedro ayaa moodaa inay qiimo raqiis ah ku heli doonaan soo kaleetana oo mishaar hoose ka qaadan doono kooxda kubadda cagta The Reds lagu naanayso ee Liverpool walba ay noqoto waxaan moodaa in wax kasto ay isbedeli doonaan maamaha soo socdo Bayern ayaana diyaar u ah in ay siiyaan mishaarkaasi waalida uu dalbanayo ciyaaryahan Sadio Mane waan ciyaaryahankii ka saaciday in kooxda ku guuleystaan 6 koob oo muhiim ah cagayo naadiga Manchester United hadii aanu eegno waxaa jira in dhowr ciyaaryahan ay doonayaan inay iska tagaan ama tababara cusub kooxdaasi Erik ten Hag uu doonaya inuu isbedel weyn ku sameeyo kooxda iminka Pogba ayaa lagu dhawaaqay inuu ka tago kooxda kubadda cagta Manchester United isagana loo badinaya inuu ku biro kooxaha PSG ama kooxda kale ee Juventus kooxdiisa hore waxa soo kale jira in ciyaaryahan Lingard uu iska tagay kooxda soo la filayno ku biro kooxda kubadda cagta West Ham United wow runtii waxaad moodeen United ay doonayeen dhowr ciyaaryahan inay fasaxaan sababtoo waxay rabaan inay kooxdu ku sameeyaan isbedel aad u wanaagsan iyo inay la qabsadaan qaab ciyaareedka wanaagsan ee laga ciyaaro horyaalka Premier League Manchester United ayaa moodaa in qaab ciyaareedkooda runtii uu sanahay mid aad u wanaagsan ciyaareedkan oo dhan waxa haysan hal gool oo kaliya runtii taasina maahan in koox weyn sida Manchester United oo loo arko inay hal gool ku dhameystaan runtii ciyaareedan wax kooba iska wadaafe soo kaleetay waxa soo kaleetay soo baxay in kooxda kubadda cagta AC Milan ahna kooxda ku guuleysay horyaalka dalkaasi Serie-da ay iminka doonayaan ama se ay qaadan rabaan ciyaaryahan Eric Bailly aad moodaa inuusan boos joogta ku haysanin shacda rasmiga ee United iyo waliba shacda iminka uu doonay inuu diyaaro macalinka cusub ee kooxdani ee Erik ten Hag
ciyaaryahankan ayaa kooxda AC Milan ay ku doonayeen adduun 32 milyan qiimahaas ayaad moodaa in aysan naadiga Manchester United marnaba diidi doonin waana runtii la dhihi kara ciyaaryahan Bale waa uu gadmay wararka sportiga si waxanta wanaagay intii ciyaari meel kasta aad joogtaan waqti wanaagsan